ما بقى سنين ما أنتي مصدق عيسوك هيدا مسي أو عرقابا نقول شري أو نوجيمي وحنا قبل يا سودان كشرجة هاي لقبته وهاي هذا معاك ورا هاي مقالة بشرجة تكون لقبتينه معاك ورا هاي السومال لامبارد أنت بعدما دور شوي يمكن قالوا ويدين بعدما حلبان يلا ويدين بعدما نقاط عليه أنت سونا قدوني تينو وكديني مركا إن أنا ماير قروا ولا قصهم عايبة ماشي جوجا حتى ما قعد يسوي على قصنا هاي إن ماير كاسا مارت أنا وقصنا هاي إن كاس إن حجمورنا dadkiisa doortay doorashada halka ka dhacdana anagu waa qaadacna kama qayb kama nihin maamulka sharciyadiisana baamisanay nin jamhuuriyad sheeganaya oo caalan gaar sameeysta sida adduunyadu aysan u ictiraafsanay baan anaguna u ictiraafsanayn dad walaalaha iyo Soomaaliyeed aan u aragnaa u gaar samaystay adduunyaduna intaas waa aqoonsan tahay ilaahay ha u barakeeyo waa jecelnahay inuu maaragtay ay ku kala nabad galaan danahooda hoose oo daaqiliga ay ku qabsadaan laakiin warsangeli waa idin sheegaya Puntland wax ka dhistay asaaskeeda lahaa rukunka ugu horeeya dhigay tiibuu joogaya hadduu ka tagayo ma akhir buu noqonaya dad meelaha waa nagu soo biirayaan iyo waa maqleen warsangeli cid kuma biiro dad saa fudud ma aha dadkaasna waxa insha Allah taala munaasabadeedan la sugeynaa hadda waxa laga hadlayay mowduuc kale laga hadlayay waxa weeye Puntland maana aanu ku biirin Puntland ta la sheegayo baanan ku biirin anigu fakarkeeda maxaa ku ugu horeeyay lahaa gogasheeda xingalool dhigay dhagaxii ugu horeeyay dhigay calankeeda maxaa ku ilaahay alifay sharci yaqaanka ka ahay maxaa ku ilaahay kii xeerarka qori jiray maxaa ku ilaahay ka ahay baarlamaanka hadda u jooga wuxuu jideynaya maxaa marka meel buu ku soo biiraya istaghfirullah baa leenahay waxba naga tagi maayaan dadkan waa dad tashaday weeye dad taariikh la weeye dad tayale weeye dad magac iyo muunad iyo maamuus ilaahay darajeeyay oo karaameeyay oo ummadda Soomaaliyeed cidna aan golobka galin oo afkeeda iyo adkeeda laga nabad galo weeye waa dad ummadda ixtiraam iyo karaamo ku dhaxlay dadka Soomaaliyeed weeye meel walbana wanaagaasi u yaalo wanaaga ummaddu noo hayso noo ogtahay taariikhda noogu jiraan cid walba hadday mid shay tahay Soomaaliyeed iyo haddii maxaa ku raad oo magaca Soomaaliyeed uu namideeyo iyo hadday mid shay tahayba oo tol aan nahayba intaas aan rabnaa insha Allah taala inaan kula macaamilo wax ku wada qaybsano wax ku wada ahaano maxaa ku raad isku ixtiraano wax ka sukeeya ma jirto dad iyagu soo talin jiray maanta cid kale inay u taliso حرام عليكوي دد با Puntland baa laga talay war Puntland cid iga talisa ma jirto Puntland madaxweynaheeda u tartama maxaa ku raadayay gudoonkeeda baarlamaanka aan ahay sharci kan jidayaan ahay kii wax ka dhistay baan ahay beelo badan oo hadii la leeyahay wali madaxweyne ma noqoshaan birta ugu dhuftay biraan noqon kara beelo badan oo ka dastuurka bedelaan ahay beelo badan oo meesha degan oo wali madaxweyne aan noqon baa jira marka madaxweynenimadu iyo muwaadinimadu qofku inuu maamulka wax ka leeyahay madaxweyne maamul ugu noqdo Soomaali baynu wada nahay daaroodii hawiye baa madaxweyne noqday yaa marka oran kara Soomaaliya mi iyo daaroodii hawiye baa madaxweyne baa oranaysa madir baa oranaysa ma oranayso waxa weeye waxaas oo iska calaf weeye kursigaas waa iska dibadan yahay qofkii ilaahay maalinta u garto u calfo baa loo doortaa dadaalkeedana qofka dadka laga rabaa anagu hadda waxaan cid kale ku canaananayno ma aha shalayna waa doonaynay berina waa soo dooni karnaa calafka shalay naga hiiliyay wareegii ugu dambeeyay dadkii labada cod looga helay baan nahay berina kuwa qaali karaan nahay marka waa iska caadi laakiin Puntland baa wax ka dhisan asaaskeeda leenahay kii Puntland isoo ka tagaya oo wax ka tabanaya adiga yeelka anagu cidna maxaa ku raadayay danteeda ugu talmayno laakiin anaga shalay markaan Puntland ku wax ka dhisanaynay oo shirkii ugu horeeyay dhigaynay oo dhagax dhigeeda lahayn cidina lama socod anaga warsageliya oo saldanada baan tagnay oo misku tagnay hadda cidi ka tagaysana darasi ka xaysan mayso cidi ka tagaysa aayaheeda waa u madax banaantay warsageliya hadduu Puntland joogayna shalay isaga dhistay hadduu ka tagayna isagoo warsageliya oo sharfan oo karaamaysan buu ka tagaya meeshii uga tagayana waxay noqonaysaa wuxuu isagu leeyahay bay noqonaysaa Puntland dhagax dhigeeda lahaa maantana buddigeeda insha Allah taala yeelanaya qofka ugu dameeya maamulkaas insha Allah taala waxaan dhistay anigu qofna inay xataa si dhalinyaro leh ay ku kala daadato
ma jecla waa ku soo tiiriyo tacbeelay dadka hadda dastuurkeeda ilaalinaya oo ku kala dhex jira oo hus iyo qad iyo kii ku soo duulaba la taagan baan nahay marka haddaan ka tegeyno waxaan leenahay uga tegeynaa waxa weeye waxyaabaha la sheegayo waxaan leenahay annagu cidna inaan ku xadgudubno ma jeclin laakiin dadku tolku in wax la isu xeeriyo waa fiicane mar hala kala xishoodaan leenahay dadkan dad isku filan weeye dad isbixin kara weeye dadaan maqlaayay meelaha kaga hadla deked laas qori baa la dhisaya war annaga wasiirka dekedaha Soomaaliya ma dhahaye Muqdisho ama fureeda dekedii Axmar ama fureeda ayaabe maxaa wasiirka dekedaha Soomaaliya waayo soo dhiwarto galiyo ilkajiid Soomaa tamberbera hadda Muuse haduu mitir haduu ku darayo ilkajiid soo saxiixa wasiirka dekedaha Soomaaliya soo saxiixa hadda marsada laas qori hadda la dhisaya insha Allah taala iyo ceelaayo qorshaheeda la wadaa marka nin meel cidla fadhiya ku dhahay dekad baa ku soo maxay ku dhisaysaa haddaan dhisanayo anaa wasiirka dekadaha maxaa ku dhistaa dekadaha ma joogaabe adoo meel war laga sheegayo fadhiya maxaa waxay ka dhistaa war waa nin walba deegaankiisa ha anfaco nin walba dhulkiisa ha anfaco anigu haddaan nahay dadka deegaamada Sanaag Highland Bari iyo qaybo kamid ah Sool iyo intaaba degan dadkaas waa reer Maakhir 89 dadkii odayaashii reer Harti 89kii odayaashii Harti meeshii yareed ee macmaacadeen haddii ay waxba ka socon waayeen nin walba wixiisi tuurta ku qaatay war dadkaas hadda waxay tuurta ku qaadanayaan waa reer Maakhir weeye Maakhir wax ka sokeeyana ma jiraan dad baan maqlayeele maxaa Maakhir loo dhaqaajin waayo maxaa sidana warina gaale ma hawsheeda lagu jira hadda insha Allah waqti dhow waa hagaagaysaa muhiimna maaha in maamul lagu xidho hadii maamulo kale ay hadda dhaqaaqeen waradeer sandulle ku dhaqaaqeen iyo xabad laakiin maamulka Maakhir isagu si salmi ah wanaagsan buu ku dhaqaaqaya laguna dhisaya goboladana laga dhisaya